munaasabad lagu weyneynaayay maalinta afka hooyo oo sanad walbaba 21 Febraayo looga dabaaldego caalamka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin isugu jira wasiiro xildhibaano bahda qalinleyda iyo marti sharaf kale waxaana qabanqaabadeeda iska kaashaday Akademi Goboleedka Afka ee AGA golaha abwaanada Soomaaliyeed jaamacadda Green Hope iyo waliba Somali Ben ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ugu horreyn waxaa halkaasi lagu soo bandhigay heeso ku saabsan qiimaha afka uu leeyahay sidoo kalena ururka dhagoolayaasha Soomaaliyeed ayaa munaasabadan ku soo bandhigay astaamaha xarfaha afka Soomaaliga ee ay isticmaalaan dhagoolayaasha Soomaaliyeed abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada abwaan Barre Maxamed Fiido Leento ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Dhiciso oo ah gudoomiye ku-xigeenka Somali Ben Cabdiraxmaan Maxamed Xudeyfi agaasimaha arrimaha bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen qiimaha uu afka u leeyahay ummadda macallin Saciid Saalax Axmed gudoomiyaha Akademi Goboleedka Afka AGA ayaa ka sheegay taariikhda munaasabadan iyo sida ay ku bilaabatay 1952 bay ahayd markii dalka Pakistan bari iyo galbeed uu ku kala magacoonayo hal wadan uu ahaa oo hadda kala ah Bangladesh iyo Pakistan waaga way isku hal wadan ahaayeen waxay dawladdu jideysay in afka urduga ay noqoto kan wax lagu dhiganayo kan lagu shaqeynayo hase yeeshee ummadda Bangaalku waxay u dhiidhiyeen oo ay ardaydu inta badan u kacday in afkooda hooyo ee Bangaala ahi uu noqdo afka ay wax ku bartaan oo ku shaqeeyaan Cabdicasiis Maxamed Xasan Cadow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Professor Maxamed Faarax Cali Sacboweyne oo ka socday jaamacadda Green Hope ayaa waxa ay tilmaameen in dadka Soomaaliyeed hadday ogaan lahaayeen baaxadda uu afkooda leeyahay aysan wax kale wax ku barteen waxaan u istaagsannahay inaan xusno afkeena aan weyneyno maxaa yeelay afkeena waa mid taariikhi ah ummadda Soomaaliyeed dhammaantoodba 21 Febraayo inuu ahaado maalin ay xusaan ay weyneeyaan ayna xasuusiyaan caruurtooda dhalaanka ah inay haystaan af barwaaqo Soomaaliya afkeeda Soomaaliga ah haddii ay ogaan lahayd baaxadda luqadeed ee uu leeyahay luqad kalena wax kuma barteen luqad kalena wax kuma qabsadeen luqad kalena kuma hamiyeen laakiin waxaa ka maqan garashadii luqadooda iyo qiimaha iyo ahmiyadda ay ku leedahay ama ay leedahay ee luqadaha kale iyo mujtamacyada kale ay ku leedahay Usmaan Maxamed Cabdi Daalo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ummadda federaalka ee Soomaaliya iyo senator Usmaan Abukar Dube ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay isku af yihiin loona baahan yahay in ay ilaashadaan afka horta sidiisaba laba shay u baahan yahay kow horta inaadan baahnayn iyo inaad awood leedahay xoog labadaas lagu ilaalin karaa waxa dadkeena afka inay bartaan oo iskuulada ku yaacinaya oo luqadda Ingiriiska inay bartaan Carabi inay bartaan Carabiga waa diin in la barto waa lagu qasban yahay qof kasta oo muslim ah inuu barto oo fahmo waliba laakiin luqadda Ingiriiska waxaan u baranaynaa baahi leh Soomaa waa maalinta caalamiga ah ee afka hooyo 21 Febraayo waa maalin weyn oo ku weyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto afku sida aynu waraaqa leenoo qaybiyay baa ku taala waa waxa dunida aadamka aynu kaga duwan yahay uumanka kale Ilaahay abuuray waa isafgarashada iyo isfahamka Ilaahayna wuxuu ina siiyay luqadaas marka in luqadda la qorana waxay ahayd wixii ugu weynaa ee dhaxal ah ee Soomaali heshay
Abuukar Jaylaani wasiir dowlaha wasaaradda awqaafta iyo islaamka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo Maxamed Barre Maxamuud wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa tilmaamay taariikhda fog oo uu leeyahay afka Soomaaliga iyo sida uu muhiimka ugu yahay ummadda. Soomaalida waxaa lagu tiriyaa inay ku hadlaan afkan la yiraahdo Afro-Asiatic waxaa ku hadla dadkan dega Horn of Africa ama geeska Africa oo ay qayb ka yihiin ama sidee u dhahaa waxa lahaa waa Cushitic waa laan ka baxda Cushitic reeraha la yiraahdo Kushi uu ahaa Kush wuxuu ahaa wiilka Xam uu ahaa Nuux hadale marka taas waxay ku tusisaa dadka Soomaalida inay yihiin dad qadiim afka Soomaaliga meesha ay ka timid taariikh ahaan lama sheegin xilliga soo bilaabay kaliya waxa maanta xuska inta badan lagu celcelinayay xilliga mindhaa la qoray 70meeyadii afka Soomaaliga qoraalka la qoray laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego afka Soomaaliga intaan ogahay taariikh ahaan intaan taariikhda ku bogaasanay wuxuu jiraa wax ku dhow 800 sano yani afkan 1300 miilaadiyada wuxuu ahaa af ay ku hadlayeen boqortooyada Soomaaliyeed ee dalkan ka jirtay ama geeska Afrika ka mid ah boqortooyooyinka ugu waaweyneed ama aan dhaho boqortooyada ajuuran waxay afka ay ku hadli jireen. Sanad walbaba 22 November waxaa caalamka laga xusaa maalinta afka hooyo.